Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in shaybaadh ku yaala magaalada Wuhan ee gobolka Hubei uu ka soo bilaabmay caabuqa dilaaga ah ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Beijing waxay eedeymo Mareykanka uga yimi oo arrinta la xidhiidha ku tilmaantay waxba kama jiraan iyo dacaayado ay sameeyeen waaxaha ammaanka ee dalka Mareykanku. Zhou Lijian, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, wuxuu intaa ku daray in saynisyahanadu ay tahay inay arrintan baadhitaan ku sameeyaan. Dukumentiyo uu helay wargeyska Washington Post ee dalka Mareykanka kana soo baxay safaaradda Mareykanka ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in saynisyahano ka socda Mareykanku ay booqasho ku tageen 2 xarumood oo cilmi baadhiseed kuwaas oo Shiinaha ku yaala. Waa sanadkii 2018. saynisyahanada ayaa markaas dowladda Mareykanka u sheegay in xarumaha ay tageen ay u nugul yihiin inay ka baxaan walxaha ku kaydsan ama lagu farsameeyay. Xarumahan ay diblomaasiyiinta Mareykanku booqdeen waxa ay ku arkeen xanuunsidayaal kaydsan oo bahweynta coronavirus ah. Dukumentiyadan ayaa sii huriyay xiisadda hadda ka dhex taagan xukuumadaha Washington iyo Beijing. Madaxweyne Trump ayaa Shiinaha u soo jeediyay inay kala cadeeyaan in fayrasku uu xaruntaas ka soo baxay ama meel kale uu ka yimi. Mareykanka iyo xogaha kale ee la hayaabo ma cadeynayaan in caabuqu uu ka soo baxay xarun shaybaadh, balse Shiinaha ayaa qaba in suuq hilibka duurjoogta lagu iibiyo uu ka soo bilaabmay. Xarumaha shaybaadhka ee xanuunada lagu kaydiyo ayaa leh hannaan lagu ilaaliyo oo caalami ah. waa 4 marxaladood oo ku xidhan nooca xanuunsidaha ee la hayo. Marxaladda ugu dambaysa oo ah tan afraad waxa lagu ilaaliyaa xanuunsidayaasha halista badan ee talaalka loo hayaa uu yar yahay ama daaweyntiisu ay adag tahay, sida Ebola ama xanuunsidaha Marburg. Inkastoo aanay jirin xog sugan oo laga hayo, haddana ilaa 50 shaybaadh ayaa lagu qiyaasaa inta la og yahay xarumaha u qalabaysan marxaladda afraad ee xarumaha lagu kaydiyo xanuunsidayaasha. Marar badan oo hore ayay dhacday in xanuunsidayaal ay si aan ku talagal ahayn uga baxaan xarumo shaybaadh, qaarkoodna ay qaadaan ciidamada militarigu, sida ciidamada Mareykanka oo sanadkii 2015 xanuunsidaha anthrax geeyay waddanka Koonfurta Kuuriya. Xukuumadda madaxweyne Trump waxay ku adkaysanaysaa in faahfaahin ay bixiso xukuumadda madaxweyne Xi Jinping, balse labada dowladood oo xafiiltan dhinacyo badani ka dhaxeeyo ayaan u muuqan kuwo iswaafaqaya. Khadar Haybasaab TV.